ardaydan maanta ka qalin jebisay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Imaam Maalig waxay ahaayeen ardaydii dhawaan ku guuleystay tartan aqooneedkii uu qabtay telefishinka caalamiga Universal iyagoo ku soo baxay kaalinta koobaad balse maanta 12 sano kadib waxay soo gabagabeeyeen waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare ee iskuulka Imaam Maalig walaal soo dhawow adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo dareenkaaga farxadeed ee ku aadan qalin jebintaada maanta waxaadna ka mid ahay shakhsiyaadkii sida gaarka ugu guuleystay shahaadooyinkii iyo hadiyadii maamulka iskuulka uu bixinayay horta magacayga hadda ku bilaab waa Cabdullaahi Ibraahim Maxamed dadkina ugu wada yaqaanaan abtiga waxaa mahad iskale Allah subxaanahu wa ta'aala horta noo suurtageliyay in xafladeedii ay noogu soo dhamaatay si qurux badan waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo xaflad ku saabsan aniga khusayso oo qalin jebinteeda ah marka dareenkaygana kuma soo koobi kara 12 sano waxaa soo baranay inaan uga hadlo muddo kooban oo yar oo 4 daqiiqo ama 2 daqiiqo kuma soo koobi karo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan yani qaadno tartanka Universal TV oo aynu muddo badan ku fikirina oo sanadkan aan kaga hadlay aynu in badan ku fikirina aan qaadno waxaanu waban Soomaaliyeed wuxuu u yiri nafaba geedka ee beerto goosan miris dadka badan waxay dhaan tartanku waa nasiib walow oo nasiib yahay tartanko balse waxaa jira yani hadii cilmiga aan lagu sii darin nasiib oo qofka kaliya ku ekaaday inay nasiib taane waxba uma suurtagalaan waxaan u mahad celinayaa dhammaan mu'asasada Imaam Maalig maamulkeeda macallimiintii iyo waalidiintii inagu soo tiir iyo tacab beesha dhib iyo dheef intaba iyo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa suxufiyaasha ka soo qayb galay doogitaanka qaasatan Universal TV walaal waa dhawahay magacay waa Cabdinaasir Sheekh Qaadan Cabdullaahi Salaad Xikmaabi aad iyo aad u mahadsan tahay waraysiga gaaban hadaa ma tumaad dareenkayga kuma soo koobi karo ku dhawaad wax yar oo kooban maadaama aan ku faraxsanahay inaan dhameeyay 12 sano waxaan soo baranay ka waran 12 sano kadib waxaad soo gaartay heerkii waxbarashada dugsiga sare aad ka qalin jebisay wadooyin fara badan baa ku dhiman farxadaada iyo dhibaatadii faraha badneed oo ay soo martay kadib maxaad dareemaysaa hadda waxaan dareemayaa inaan aad iyo aad caadiyan garaad ahaan iyo aan horumaray sidoo kale noloshu waa xilada caqabado fara badan haddaad caqabadahaas ama jaaniseed aadan u qaadan in ku tahay fursad sidoo kale waa ku fashilmaysaa noloshaada marka caqabad walba ku soo marto haddaa ka dhigato fursad aad wadada guusha ku mari lahayd waxa hubaal guushaada waa gaaraysaa buug baad soo bandhigtay oo dadka su'aalo aad ku weydiinaysay muddadii aad waxbarashada ku guda jirtay miyaad buuggan qoraysay mise waqtiyo gaar ah baad fursad siinaysay buuggan horta qormadiisa waxay u qaadatay ku dhawaad 1 sano bar sidoo kale buuggan markaa qorayo waxay ahayd xilligii aan wax baranayay buuggan horta qormadiisa waxaan ku keenay qisooyin fara badan taa oo macnaha aan ku arkay dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale buuggan waxaa u qoray hab qiso ahaan ah oo si qiso akhristaha u xiiseeyo oo uusan ka caajin oo uusan ka daalin marka buuggan waxaa ku gudbinayaa sida ardayga u guuleysan lahaa waa buug hab qiso ahaan ka hadlaya ama u soo gudbinaya hab yani arday Mustafa dhibana ah iyo ardayga xaliya oo xalidoon dhamaan dhibaatooyinka Mustafa